بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا كبعية مان كجنال بليس هذا مقال كاشين سبسكرايب ان لايك ان شير صار هلا بقايلين magacayga waa Ceenad Cabdullaahi waxaan rabaa halkan inaan kugu soo gudbiyo xalay maadaama lagu guuleystay Ballon d'Or ku guuleystay ninka gaabnaa ee mucjisada ah ee naga yaabinayay ee adduunka yaabsaday ee magaranaysa muddada badan kubadda tan jiilkan xilligan la joogo kubadda ninka uu hadalhaynta badan iyagu saameynta badan ninka Lionel Messi oo ku guuleystay xalay Ballon d'Or-tiisii lixaad hadda waxaan rabaa inaan halkan idinku soo gudbiyo sidii xalay u kala sareeyeen ama bointiyada oo dhibaca u kala heleen balaayarintii Ballon d'Or-tan u tartabaysay iyo kaalimaadkii u kala galeen haddaba majalada France Football Magazine oo soo bandhigtay sida ay codadka u kala heleen musharaxiinta abaalmarinta Ballon d'Or ee xalay la bixiyay Lionel Messi ayaa xalay markiisii lixaad ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or wuxuuna ku garaacay labada xidig ee Virgil van Dijk iyo Cristiano Ronaldo kadib xafladii ka dhacday magaalada Paris Messi waa xidiga ugu badan ee abaalmarintan ku guuleystay maadaama ay ka hor xalay isaga iyo Ronaldo wada haysteen min 5 jeer waxaana xusid mudan inuu horay ugu guuleystay 2009 2010 2011 2012 kabtanka Argentine wuxuu helay xalayna waa markiisii lixaad bahdo 2019 buu guuleystay 6 jeer buu saas ku haystaa kabtanka Argentine maadaama waxa la ku guuleystay codadka uu helay waxay ahaayeen 686 halka Virgil van Dijk oo ku guuleystay 679 taas waxay ku muujinaysaa inuu Van Dijk uu sigay Messi oo ku dhawaaday wax yar oo kaga qaaday 7 cod kaliya oo kaga qaaday marka taas waxay ka dhigan tahay in xidig reer Holland uu ku dhawaaday inuu helo oo Ballon d'Or-tiis uu horeeyay oo ay waliba difaac muddatan uu ku guuleystay ma jirin ilaa xilli hore mooyaane marka uu noqdo difaacay hadda xilliga kan lagu jiro uu hore ku guuleystay haddaba France Football Magazine waxay soo bandhigaysaa sawirro muujinaya sida ay wariyaasha laga soo doortay wadamada dunida u codeeyeen musharaxiinta Ballon d'Or-ka Virgil van Dijk wuxuu codadka ugu badan ka helay wadamada Yurub iyo Aasiya halka Messi uu kaalinta koowaad ka noqday wadamada hoos yimaada afarta xiriir ee kale Sadio Mane waxa la yaabka leh waxay ahayd Sadio Mane ognayn Senegalese inuu yahay wadankiisa hatta yani player walba waxa la rabaa wadankiisa oo kale marka la eego sida loogu codeeyay waa player walba wadan walba playerkiisa ayuu codka koowaad siiyaa laakiin Afrika oo ka soo jeeday waliba wadankiisa oo Senegal ah codka koowaad Senegal kuma uu soo helin ninka la yiraahdo Sadio Mane codadka ugu badan waxa ka helay Afrika Messi marka iyo sidoo kale ninka la yiraahdo Alisson Becker baan isagana yareysanayn oo isaguna Yurubna ka helay wadamada Yurub iyo Latin America maadaama uu hade Alisson Becker golay sanadkan wax badan soo bandhigay oo xariiftamay naadigiisa maganaha uu ku dhawaaday inuu qaadaan Premier League oo kale championka waan ogaday rimitada ay sameeyeen garoonka Camp Nou golash lagu soo dhaliyay way ka soo kabsaday xagga markii la tagay Anfield oo isaga habeenka gol badan badbaadiyay si la yaab leh uu badbaadiyay oo waliba naadigiisa u saaray hadee finaalkii lana qaaday championka akhrkii sidoo kale hadana Latin America oo kale waa xagga Copa America buu ciyaaray Messi mar labaad ka hor yimi oo hadana uu shabaqa u diido ka ilaashaday halkaasna uu kaga qaaday Copa America marka sanadkan wuxuu ahaa sanadkiisii golahay aan caadi ahayn weeyaan marka waxa leeyahay Virgil van Dijk wareer Liverpool war heer difaac ba soo direysaan baaliyada malihidin imaamad malihidin nimayo waxa weeye waa shaqo xumida xaraarida nimayo meesha waxa weeye bal Van Dijk ba soo direysaan intii Mohamed Salah ma soo diraanin Sadio Mane sala cali ciyaarta laga